waxaa toddobaadkan si weyn loo hadal hayaa gantaal dowladda Shiinaha ay cirka u dirtay kaas oo ka soo baxsaday gacanta dowladda Shiinaha waxaase tan markaas wadamada dunida qaarkood soo wajahay baqdin badan gantaalkan ayaa lagu magacaabaa Long March 5P waxaa saarnaa qalabkii asaasiga u ahaa xarunta cirka ee Shiinaha hadaba maxaa keenay baqdinta gantaalkan oo ah mid dhererkiisu yahay 27 mitir sidoo kale miisaankiisa ayaa lagu sheegay 21 tan waxaana la tilmaamayaa in gantaalka uu yahay mid aad u dheereeya oo dhulka ku wareegaya xawaare dheereeya hay'adda cirbiyeennada Mareykanka ayaa sheegtay in la filayo in gantaalku uu soo gaaro hawada dhulka 8 May 9 ilaa 10 May ee maalmahan la soo aadan culimada ayaa qiyaasaysa in gantaalku uu ku soo beegan yahay wadamada dhinaca waqooyiga ee dunida Mareykan, Spain ilaa Beijing dhinaca koonfurta wadamada laga cabsi qabo Chile, Brazil ilaa New Zealand sidoo kale waxaa la filayaa inuu ku soo dhaco meelaha badaha maadaama dhulka 70% uu yahay bad waxaa dhici karta inuu ku soo dhaco wadamada Carabta mid ka mid ah sida Morocco, Algeria wadamo kale ayaa iyana laga cabsi qabaa maxaa dhacaya haddii gantaalka uu soo gaaro dhulka gantaalkan oo dhererkiisu yahay 27 mitir ayaa haatan dunida ku dul wareegaya 90 daqiiqo kasta xawaarahaas oo aad u dheereeya sababayna in khubarada cirbiyeennada ay ku adkaato inay shaaciyaan halka saxda ah ee ku dhici karo waxaa la sheegayaa in waxyaabaha xaaladda sii adkeyn kara ee dunida ay ka walacsan tahay ay yihiin in Shiinuhu uusan dunida inteeda kale la wadaagin macluumaad ku filan oo la xiriira gantaalkaas wasiirka gaashaandhigga ee dalka Mareykanka Lloyd Austin oo ka hadlay gantaalkan ayaa yiri The latest estimates that I've seen is somewhere between the 8th and 9th, and the experts are still working on that. At this point, we don't have a plan to shoot the rocket down. We're hopeful that it will land in a place where it won't harm anyone, hopefully in the ocean or someplace like that. I think this speaks to the fact that for those of us who operate in the space domain, that there is a requirement, there should be a requirement to operate in a safe. gantaalkan 18 tan ayaa bishii May sanadkii la soo dhacay kaas oo lagu sheegay inuu ahaa gantaalkii ugu cuslaa tan iyo gantaalkii ka soo lumay hawada sare ee midowga Sovieti ee sanadkii 1991 2018 gantaalkii loogu talagalay xarunta hawada sare ee ugu horeysay ee Shiinaha wuxuu ku burburay oo uu ku dhacay badda Pacific kadib markii xukuumadda Beijing ay xaqiijisay inay lumiyeen xakameynta gantaalka bishii Maarso gantaal lagu magacaabo Falcon 9 oo uu Mareykanka hawada u diray ayaa ku soo dhacay dhulka gaar ahaan Washington iyo xeebta Oregon warbixinada kale ee ka soo kordha gantaalka Shiinaha ay cirka u dirtay ee ilaa hadda baqdin geliya wadamo badan waxaad kala socon kartaa page-kayga xabiibladan haddii ay tahay markii ay kugu horeysay ka mid noqo saaxiibada nagu xiran siina faafi si saaxiibadaada kale noogu soo biiraan mahadsanidin